asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabteena ku xidhan janaalkeena hoyga bulshada kusoo dhowaada mowduuceena maanta. tuulo ku taala dalka turkiga oo lagu magacaabo Hatay ayaa waxaa ku nool qoys 5 qof ka kooban. 5 qofi waxay ku soconayaan lugaha iyo gacmaha. mowduuceena maanta si aad ula socoto fadlan ha naga fogaanina. saaxiibayaal, waxaan idinku bishaaraynaynaa inaanu bartan idiin soo golin doono barnaamijyo taxane ah oo toddobaadkiiba 2 barnaamij ama 2 mowduuc oo macquula idiin soo gelin doono. fadlan haddii aad channelkeena hore aadan ugu jirin, fadlan subscribe noo saar, kuna soo biir kana mid noqo asxaabta ku xidhan channelka hoyga bulshada. waad mahadsantihiin asxaabta qaaliga ah. tuulo ku taala gobolka Hatay ee koonfurta dalka Turkiga ayaa waxaa ku nool qoys lugaha iyo gacmaha ku socda sida xayawaanka oo kale. ma maqli jeeday dad lugaha ku socda? qoyskani waxay ku soconayaan gacmaha iyo lugaha. ugu horreyntii ayaa cilmi baarayaal saynisyahanaha ay heleen 2005 sababta keentay inay lugaha iyo gacmaha ku socdaan ayaa qoyskan gacmaha iyo lugaha ku socda waxayna ka kooban yihiin 5 qof oo walaalo ah, halka ay dumar yihiin 2 ragguna ay yihiin 3. doodooda waxaa lagu qiyaasay رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. waalidka dhalay ayaa inay iyaguna caadi yihiin, labadooda lugoodna ay ku soconayaan. in ku dhow 4 milyan oo sano ka hor ay ku socon jireen dadkii hore lugaha iyo gacmaha. baaritaano ay caafimaadku kadib waxay saynisyahanadu isku khilaafeen sababta keentay inay lugaha iyo gacmaha ku socdaan 5 qofi ee walaalaha, iyadoo dhakhaatiirtu ku doodayaan inay dhaawac maskaxda ka soo gaadhay yihiin 5 qof. إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد. kale saynisyahanadu aaminsan yihiin inay hiddo-dhaxal tahay, ayna keeneen 400 oo sano ka hor tafiirtoodii hore. se haddaba daawada waxaa la iska indhatiri karin arrintan mucjisada ah ee mudan in lagu waana qaato, sababtoo ah labada lugood ayay dadku ku socdaan, wayna ka fududahay 90% in lagu socdo gacmaha iyo lugaha. waana nimcooyinka ilaahay noogu galladay in loogu shukri naqana mudan. mowduuceena maanta fadlan intaas ayuu noo joogi doonaa. fadlan ku xidhnaada janalka hoyga bulshada oo ah saaxiibka bulshada. أصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين.